kulanti wacan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararka ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamka qodobada kuuga hanan waxaa kamid noqon doona xog iyo macluumaad dheeraad ah ayaa inteegana wuxuu salku ku hayo oo laha uu wado xildhibaan xaadoole ee ka dhanka ah gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Madaali waan idin soo guddoonaa tafaasiil dheeraad ah maxaa ka jira in xildhibaanka gudoomiyaha uu ku cadaadinayo in markaas uu xilka ka dego iyo warar hoose oo sir ah oo aan helnay aan idin soo gudbi doonaa waxaa kaloo daawo doontaan wasaaraha wuxuu shir iskugu yeeray ganacsada Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku nool kadib qaraxdii soo ka dhacay waxa uu kala hadlay waa daawo doontaan waxaa kaloo idin soo gudbi doonaa Maxamuud Shido iyo Xasan Jaano ayaa ka shiray damaca mudkursiga ee madaxweyne Siciidani ee Puntland wararka Puntland xoga xasaasi ayaan kaga helnaa saaxiibada Puntland Siciidani oo godkiisa biyo ugu soo galay waxaa kaloo daawo doontaan Mareykanka wuxuu xayiraado cusub ku soo reeyay hogaamiyaha cusub ee daacishta Soomaaliya qodobada ku faahfaahin doona wararka caalamka diblomaasiyadda wadan hadda aad noqoto muuqaalka la akhrisanay shir garay si saaxiib badan u gaaro subscribe-ka noo saara aan ku bilaawno iyadoo uu jiro khilaaf u dhexeeya gudoomiyaha gobolka Banaadir aan hadda magaalada Muqdisho Yuusuf Madaali iyo xildhibaan Cusmaan Xaadoole ayaa magaalada Muqdisho laga dareemayaa saameynta khilaafkaasi sidaan ogaanay duqa magaalada Muqdisho ayaa abaabulay 3 kulan oo lagu dabarjibinayo qorshaha xildhibaan Cusmaan Xaadoole ee ah in talada beeshiisa isaga loogu dambeeyo wuxuuna gudoomiyaha gobolka Banaadir ka qayb galaya sharaf xabiiskiisa laga abaabulay isla markaana isaga loo qabtay Madaali iyo xildhibaan Xaadoole ayaa ku dagaalamay magacaabistii uu sameeyay madaxweynaha Soomaaliya maadaama xildhibaanku uu beeshiisa la rabay kursiga gobolka inkastoo markii dambana uu ka qayb galay xafladda xilwareejinta Sheekh Yuusuf Madaali gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa qaabilay garabyo kamid ah difooyinka markaas ku aftirsada kursiga hoob 106 ee uu ku fadhiyo xildhibaanka waxaana la sheegay in dadka uu qaabilay ay dhammaantood mucaarad ay ku yihiin xildhibaanka gudoomiyaha gobolka ayaa la sheegay in soo kale madaxweynaha Soomaaliya la kulunsiiyay siyaasiyiin ka soo jeeda beesha xildhibaan Xaadoole isagoo markaas u sheegay in xildhibaanka beeshiisa khilaaf uu ka dhex jiro isla markaana sidka beeshaas ay jufo markaas u bixiso dawladda Soomaaliya xildhibaan Xaadoole ayaa ku maqan deegaanka masaajid Cadgudud ee gobolka Shabeellaha Dhexe isagoo markaas ka mid ah baxda hogaaminaysa howlgalka ka dhanka al-shabaab halka duqa Muqdisho uu markaas xalay iyo habeenno horeba shirar siyaasadeed iyo xaflado soo dhaweena ka qayb galay Muqdisho xilli weli la gureenayo midadka dadkii ku dhintay weeraradii Soobe isbitaaladdan ay ka buux dhaafeen dad qaba dhaawacyo maxadda haddii uu Madaali ku guuleysan doono in abaabulka beesha Xaadoole ay ka caabiso in laga dhaadheeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu xilalka markaas u qorsheeyay beeshaasi la garab maro xildhibaanka waa arrin kale oo culus ay leeyihiin dadka falanqeeya arrimaha markaasi dadkan beeshan ishaysata dhinaca kale wasaaraha Soomaaliya waxa uu iskugu yeeray ganacsada Soomaaliyeed kulan ayuu la qaatay kadib weeraradii ka dhacay magaalada Muqdisho kulanku ay goobjoog ka ahaayeen guddiga heerka wasiir ee xukuumadda ay u xisaartay maareynta musiibooyinka musiibadii ka dhalatay qaraxyadaas iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir kulanka ayaa diiradda lagu saaray doorka ganacsada ay ku leeyihiin samata bixinta iyo mideynta kaalmaha dhaqaale ee markaas lagu taakuleeyo dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay qaraxdii Soobe ee shacabka Muqdisho ay ka fuliyeen 29 Oktoobar wasaaraha oo ganacsada ugu mahadceliyay doorkooda muuqda ayaa xusay in wadajir xoog loo saaro si shacabka lagu gurman lahaa dawladda federaalka ee qaaday talaabooyin wax ku ool ah lana sii wadi doono walaha gurmadka shacabka Soomaaliyeed loogu baahan yahay inay sii kordhiyaan gurmadkii dadaalka ay wadaan ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha kulankan ayaa waxa wasaaraha la yeeshay ganacsada Muqdisho waxa uu ku soo aadayay iyadoo dawladda ay laba jibaatay ayska isaarayso ganacsada ay si meesha looga soo raacan canshuurta ay siiyaan dagaalamayaasha ururka al-shabaab tabi hore ayaa daawanaysa saaxiibayaal markaana Siciidani ayaan aadinaa mudkursigiisa ayaa laga warqabaa oo waxa la damacsan yahay siyaasiyiinta halka ka soo jeeda qaar kumid ah qaar la mid ah Siciidani iyo damacsan mudkursigaas yeeshay kelmad diyaana ayaa arrintaas si weyn ugu soo horjeeda oo shirar Muqdisho ka bilaabay magaalada Garowe Maxamuud Shido iyo Xasan Jaano oo ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradsan madaxweyne Dani ayaa kulan gaar ah ku yeeshay magaalada Nairobi xarunta dalka Kenya sida ay xaqiijiyeen oo lagu kalsoon yahay labada siyaasi ayaa ka mid ah dadka sida weyn ugu soo horjeeda inuu mudkursi sameeyo Siciidani oo mudaharaadkiisu ku eegay 8 January 2020 inkastoo aysan jirin xog rasmi oo ka soo baxday kulanka Maxamuud Shido iyo Xasan Jaano haddana warar hoose ayaa sheegay in mucaaradka ku sugan bari iyo nugaal ay ka mid yihiin diidamada mudkursiga Siciidani oo qorsheenayo madaxweynaha Puntland oo hadda ku sugan magaalada Muqdisho ayaa isna saacadaha soo socda ku wajahan magaalada Nairobi waxaana xusid mudan in safarkiisa Nairobi aysan ku weelin ka tirsan dawladda Siciidani ayaa lagu wadaa inuu soo kale
usii gudbo dhinaca magaalada Dubai ee dalka Imaaraadka Carabta balse faahfaahintaasi ka badan lagama hayo safarkiisa damaca muddo-kororsiga dani ayaa si xoogeysanaya bilihii dhowaa balse ma cadda sida uu maareen doono uguna dhaadhicin doono jilbaweynta Puntland سيدنا أيها مدحونها puntland keliya aan weli sameyn muddo-kororsi iyadoona dhammaan madaxda dowlad goboleedyada kale ay sameysteen muddo-kororsi min hal sano ah kiisa Puntland ayaa maamul goboleedyada kale ugu duwan inay leedahay iyadoo dowladeed oo saldhig xooggan leh kuna dhisan dastuur isla markaana aanay awoodin gacanta ugu jiri karin hal shaqsi oo sidoo markaas ka yeelanayo nidaamka maamulkaasi Puntland ka jira qaybihii dhexe ayaa daawanaysan channelkeena saaxiibayaal subscribe noo saara oo kambalka farta una sii shargareey saaxiibadii meel kasta joogan idinku commentiga like inoo rabay aad baad u mahadsantiin hadda sida aad nala jaan qaadataan oo aad nala socotaan bal markaana Mareykanka wuxuu xayiraad cusub ku soo rogay Ameerika cusub ee daacadda Soomaaliya xubno kale wasaaradda maaliyadda dowladda Mareykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogtay xubno ka tirsan ururka daacadda Soomaaliya iyadoo uu ugu eedeeyay inay ku lug leeyihiin ganacsiga hubka dalalka bariga Afrika iyo Yemen madaxa cunaqabateynta la saaray waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Maxamed Cumar oo lagu eedeeyay inuu xubin ka yahay daacadda Soomaaliya iyo inuu yahay xubinta ugu firfircoon ee laga soo bilaabo 2020kii hubka sharci darrada ah ee ka soo dejiyay deegaanada maamulkaasi Puntland waxaa kaloo Mareykanka xayiraad saaray Ciise Maxamed Yuusuf oo lagu eedeeyay inuu hubka iyo saadka u fududeeyo al-shabaab isla markaana uu ka soo dejiyo hubka deegaanada maamulkaasi waxaa soo kale cunaqabateynta la saaray Cabdiraxmaan Faahiye oo lagu sheegay inuu yahay Ameerika daacadda Soomaaliya iyo Maxamed Axmed Qaxiye oo la sheegay inuu yahay madaxa amniyaadka kooxdaasi waxaa hore loogu ogaa inuu daacadda Soomaaliya madax ka ahaa Sheekh Cabdulqaadir Muumin balse warka ka soo baxay Mareykanka ayaa caddeyn u inuu hogaamiye cusub ay yeelatay daacadda Soomaaliya iyadoona caafimaadka Sheekh Cabdulqaadir Muumin la sheegay inuusan wanaagsaneyn Mareykanka ayaa sanadkii 2018kii liiska ururada argagixisada ku daray ururka daacadda ee Soomaaliya deegaanka ayaana sii kordhinaya cunaqabateynta shakhsiyaadka markaasi argagixisada ka mid ah isla markaana siyaabooyin kala duwan eedeymaha u wajahaya wararka gobolka intaan aadan haddii aan eegno madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan dalka Algeria ayaa markaas waxa uu kulamo kala duwan la qaadanaya madaxda ka soo qayb gashay shirka dalalka jaamacadda Carabta madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa kulan la yeeshay xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres kulan duceejada labada dhinac ee magaalada Algiers ayaa looga hadlayay xaaladaha abaaraha dagaalka dowladda ay kula jirto al-shabaab iyo muhiimadda ay leedahay taageerada beesha caalamka madaxweynaha ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay la wadaagay xaaladda dalka dagaalka ka dhanka al-shabaab isagoo xusay in cunaqabateyn hubka looga qaado Soomaaliya si weyn u caawinayso dagaal lagu hayo buuriye argagixisada Soomaaliya tan gobolka iyo caalamkaba madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa qaramada midoobay ka codsaday inay sii kordhiso taageerada bini'aadanimo iyo tan farsamo ay siiyaan dowladda Soomaaliya si loo xaqiijiyo xasiloonida dalka iyo in ciidanka Soomaaliyeed ay la wareegaan kuna filnaadaan ammaanka dalka maadaama iminka hadda ay joogaan ciidamada midowga Afrika ee ATMIS oo nabad ilaalinta Soomaaliya muddo badan ayagoona aan wax dagaal toos aan la gelin dagaalamayaasha al-shabaab guryahooda ayayna iska joogaan ama xarumahooda iyadoona hal ogyahay in dalka hadda uu ku socdo dagaal ka dhanaa al-shabaab oo shacabka ay kaashanayaan ciidamada xoogga amisoonta ayaa mushaar ka badan kuwa ciidamada ay qaata waa 2,000 iyo ka badan lacag ayay qaataan halka askari ee dowladda Soomaaliya ka tirsan oo qaato lacag 200 ah oo xitaa mararka qaarkood aan helin guno taas ayaa sababtay in dowladda federaalka ay caalamka ka codsato inuu cunaqabateynta hubka laga qaado isla markaana amnigooda ay ayagu ku filayeen Amazon loo baahneen wararkii ugu waaweyn ee Soomaaliya caalamkana aad kala socoteen channelkeena Daawud Alwaanag inta